salaamullaahi calaykum daawadayaal meel kastoo aad dunida ka joogtaan waa mar kale iyo xubinteenni falanqaynta waxaana ku soo qaadan doonaa dagaalo khadhaadh ayaa ka socda gobolka Shariin ee galbeedka Tigray. TPLF ayaa laga qabsaday magaalada Sokayta. Dagaal culus ayaa maanta ka dhacay deegaankaasi. Xumayra hilba ku dirir ayaa ka socda dowladda federaalka Itoobiya waxa ay soo bandhigtay kumanaan maxaabiisa oo ay sheegtay inay ka qabsatay kooxda TPLF. ururka ONLF ayaa ka hadlay qadiyadda galbeedka City iyo xasuuqa ka socda deegaanadaasi. qodobadaas iyo kuwa kale oo xiiso badan ayaan ku qaadaa dhigi doonaa xubinteenna waxaana ila qaabayn doonaa saaxiibkay Faahiye ku soo dhawow dagaaladii ugu dambeeyay ee ka socda waqooyiga Itoobiya maadaama saacadihii ugu dambeysay aad indhaha ku haysay guud ahaanba Itoobiya iyo xaaladihii ugu dambeeyay. axmed waad baad u mahadsan tahay. dalka Itoobiya weli waxaa ka socdo dagaal lagu halaagsamay oo labada dhinac isku haya waa TPLF iyo dowladda federaalka Itoobiya ay ku hilbadirirayaan dhinac kastana uu doonayo inay asagu guusha raacdo. waxaad ogeyd in kumanaan ka tirsan ciidanka militariga Itoobiya ay soo bandhigaysay maalmihii u dambeeyay TPLF. dhinaca kalena dowladda Suudaan ay xalay xaqiijisay in saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidanka militariga Itoobiya iyo ciidankoodii iyo baabuurtoodii ay dalkaasi u galeen iyadoo la soo warinayo in khilaaf xooggan uu ka dhex taagan yahay hogaaminta sare ciidanka militariga dalka Itoobiya. dhinaca kalena laga cabsi qabo in ciidankaasi ay kala cararaan ama ay burburaan. dowladda Itoobiya xilligan waxay qarka u saaran tahay xaalad burbur iyo fashil ku yimid guud ahaanba systemkii guud ee dalka Itoobiya iyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed. intaasi markaan ka tagno dagaalada ugu dambeeyay maanta ka dhacay gudaha dalka Itoobiya ee u dhaxeeya falaagada TPLF iyo sidoo kale dowladda federaalka Itoobiya oo kaashanayso ciidamada dowladda Eritrea iyo booliska Amxaarada, maleeshiyaadka Faano iyo shacab la abaabulay oo ka kala socday deegaanada Amxaarada, Canfarta iyo sidoo kale gobolka Tigreega iyo xuduudda dalka Eritrea ayaa la sheegayaa maanta dagaaladii ugu kulkululaa ama ugu khadhaadha inay ka dhaceen magaalooyinka kala ah Sakota, Gashane, magaalada Humayra oo ay ka socdaan hilbadir maalintii afraad iyo sidoo kale furin hor leh oo cusub oo galabta dagaalka ku soo biirtay taasoo la sheegay in waxa weeye wixii awood ay hayeen labada dhinac inay iskugu geeyaan halkaasi. dhinaca kalena uu ka socdo dagaal khadhaadh oo khasaarihii abid ugu badnaa labada dhinacba ka soo kala gaadhay. TPLF dagaalkaasi guul ayay ka sheegatay wuxuuna ka socdaa dagaalkaasi magaalada Shariin ee gobolka Shariin ee deegaanka Tigreega ka xiga dhinaca galbeed. halka waxaa la sheegay in ciidamada kala duwan kuwa militariga Itoobiya, kuwa Eritrea iyo maleeshiyaadyo kala duwan oo la abaabulay iyo ciidanka TPLF oo ay la socdaan jamhadda Ago iyo Qimaat in aagaasi ka dagaalamayaan. dagaalkan waxaa maanta ku biiray sida xogta aan ku helayno jamhadda ka tirsan qoomiyadda Canfarta kuwaas oo tababaro kala duwan ku qaadanaya gudaha deegaanka Tigreega. halka waxaa la sheegay in dagaal uu ka socdo shakhsiyaad ka mid ah kooxda TPLF oo xidhiidh kala duwan la sameynay. dhinaca kalena aan isku daynay inaan xogta dagaalkaasi ka helo waxay noo sheegeen in ay burburiyeen inta badan fadhiisimihii ciidanka Itoobiya ee soo duulay iyo goobihii dhufayska ay kaga jireen. hub fara badan ay ka qabsan doonaan ay ka qabsadeen aan idhaahdee. dhinaca kalena ay cagta mariyeen ciidanka militariga Itoobiya. shakhsigaas aan la xidhiidhnay wuxuu noo sheegay in dagaalkaas iyo guusha ay ka gaadheen iyo waxa weeye cadaymihiisaba ay soo bandhigi doonaan oo ay hayaan, balse wuxuu sheegay inaysan hadda ka hor dhacin maadaama uu socdo dagaal khadhaadh. dhinaca dowladda federaalka Itoobiya ilaa iyo hadda wax wara kama aysan soo saarin dagaalka ka socdo galbeedka ee gobolka Tigray gaar ahaan magaalada Shariin halkaas oo la sheegay in lagu hilbadarirayo. axmedow deegaanka Humayra aan ku noqon maalintii afraad waxaa ka socda dagaal khadhaadh oo dhinacyadu ay waxa weeye awoodoodii iyo tabartoodii iyo saadkoodii iyo ciidankoodii iyo wax walba ay hayeen ay iskugu geeyeen. dhinaca dowladdu waxaa garab taagan dowladda Eritrea oo kumanaan ciidan halkaas soo dhoobtay, maleeshiyaadka Amxaarada, faanadii, shacab la abaabulay iyo sidoo kale ciidamadii militariga Itoobiya oo la sheegay inay la socdaan dhinaca kale ciidamo ka kala socdo deegaanada dalka Itoobiya. waxaa la sheegay halkaasi dagaalka ka dhacay inuu yahay midaan waxba la isu reebanin. kolla TPLF baa la jabinaya, cagta la marinayo, la baabinaya, deegaanka Tigreega la isla galahayaan. kolla dib intay u soo noqdaan iyo magaalada Humayra isla soo galahayaan. halka guuligu ma kala gaadhin. TPLF xidhiidh kala duwan oo la sameeyay waxay sheegeen in dagaalkaasi uu yahay mid ka go'aamin doono mustaqbalka gobolka Tigreega. dhinaca kalena aysan joojin doonin ilaa ay magaalada Humayra gacanta ku dhigaan. dhinaca kalena xuduudda dalka Suudaan ay u gudbaan. sidaad ogtahay halkaasi waxaa jiray ciidamo fara badan oo ka tirsan militariga Itoobiya nabad sugidda u joogay dalalka Suudaan iyo South Suudaan kuwaas oo qoomiyadda Tigreega ka soo jeeday oo xilligii TPLF ee waddanka ku xukumaysay ama xilliga Xayla Maryam Disalaam lagay halkaasi dib isu abaabulay halkaana weerar ka soo qaaday. ciidamada waxaa la sheegay inay haystaan hub fudud iyo sidoo kale saad aad u fara badan dowladda Masarna ay halkaas soo siisay ayna rabaan inay soo galaan si ciidamada Humayra ka dagaalamayo ay iskaga imaadaan meel dhexe halkaan ay u kala gooyaan. TPLF dekedan qalanay Humayra ay gacanta ugu dhigtay xuduudda gobolka Tigray iyo sidoo kale Amxaarada dalka Suudaan iyo Eritrea.
xaaladda guud markii inta laga soo tago magaalada Sakota xalay TPLF qabsatay maqribkii guud ahaanba magaaladaasi gacanta ku dhigtay waxa kale oo ay qabsadeen magaalada Gaashane laakiin saaka ciidamada militariga Ethiopia oo aan la ogeyn meesha ay awoodda ka keenan iyo sidoo kale waxa weeye xawaaraha inta leeg ay durba soo jireen ayaa magaalada saaka soo galay dagaal khadhaadh oo hilbadir ah oo waxa weeye mariyo dhiig la kala furtay halkaas ayuu ka dhacay kadibna TPLF waa laga saaray magaalada Sakota laakiin Gaashane ilaa ay hadda TPLF kameena bixin dagaal ayaana ka socdo wararka hor dhaceen helayno iyo dadka deegaankaas oo la xidhiidhna waxay noo xaqiijiyeen in duqaymo aan kala joogsanayn ay ciidamada military halkaas Iishak Ethiopia ka geysteen qax aad u xoogan ayay shacabku sameynayaan oo guud ahaan magaalooyinkaas waa laga wada qaxay oo hal qof oo shacab kuma noolo ciidamada labada dhinac is dagaalayana dadka halkaas ay ku arkeen cagtay mariyeen oo way baabi'iyeen halka waxa la sheegay in ka dhacday musiibo aad u xoogan oo dhinaca kale ay ku leedeen ama ku baabeen dadkii deegaankaas dhinaca TPLF waxay sheeganaysaa guulo laakiin magaalada Sakota Batatanba faraheeda way ka baxday inkastoo weli gacanta ku hayso deegaano iyo sidoo kale tuulooyin ka tirsan magaaladan Gaashane ee TPLF ay haysato dhinaceedu waa magaalo istiraatiiji ah oo wax weyn ka bedeli doonto dagaalka TPLF ee ku jirta dowladda dhexe federaalka Ethiopia magaaladaasi waxay 167 kilomitir jirtaa magaalada caasimadda ee gobolka Amxaarada sidoo kale waa magaalo dadka degan aysan ku qanacsanayn qoomiyadda Amxaarada xasuuqyo fara badan iyo dhibaatooyin iyo gumaadna ay u geysteen jamhadda qiimaad iyo sidoo kale jamhadda ago shakhsiyaad kamid ama hogaamintooda ayaa degmadaasi ka soo jeedo qabsashada magaaladaasna waxay tusaale u tahay baa la yiri in jamhadaasi ay heli doonaan fursad ay ku soo dagaalamaan dhinaca wallo markaan soo noqono dagaaladii maalmihii u dambeeyay ka socday way istaageen TPLF waxay ku sugan tahay magaalada Goobiye oo 19 kilomitir oo kaliya u jirto magaalada Waldiya ilaa ay hadda labada dhinacna waxaad moodaa inay kala cabsanayaan maxaabiis aad u fara badan ayay TPLF soo bandhigtay maanta muuqaal hadda soo gaadhay oo waxa weeye ku jira taleefankayga waxay ku soo bandhigtay ciidan aad u fara badan oo hor leh kuwaas oo ay ku sheegeen in ay goobo kale ka soo qabteen TPLF waxay sheegtay in ay wali soo wado ciidamadii ay dagaalada kala duwan ee ka dhacay xuduudda dalka Eritrea deegaanka Amxaarada gaar ahaan Wallo Humera Sakota iyo Gaashane iyo sidoo kale magaalooyin kala duwan iyo sidoo kale gobolka Canfarta dagaalada ka dhacay maxaabiista ay ku qabteen in lagu soo wado magaalada Maqale ee caasimadda gobolkaas waxayna sheegeen soo bandhigaan hadda galabtadan muuqaal hor leh ayay soo bandhigeen dhinaca federaalka markaan u dhaqaaqno Axmedow dowladda federaalka Ethiopia maanta waxa ku dhacday fadeexadii abid ugu weynay taariikhda Ethiopia marka la fiiriyo qaabka inkastoo Ethiopia wadan gumaysi oo waxa weeye dhaqanka ka jira ay uusan ahayn dhaqan ee tixgeliyo qoomiyadaha kala duwan iyo sidoo kale dadka muwaadiniinta uusan ahayn oo lagu yaqaanay in meel waxa weeye la isku cadaadiyo la isku caburiyo la isku bahdilo la isku gumeeyo waxa weeye dadka jinsigiisa iyo jiritaankiisa iyo mustaqbalkiisa lagu baabi'iyo maadaama Ethiopia tahay oo taasi ceebteeda aysan ahayn caadadeeda ay tahay Ethiopia marka la fiiriyo maanta telefishinka qaranka Ethiopia wuxuu soo bandhigay kumanaan dhalinyaro ah oo ka tirsan qoomiyadda Tigreega kuwaas oo dowladda federaalka Ethiopia ay ku sheegtay in ay yihiin ciidamo lagu qabtay dagaaladii kala duwanaa ee maalmihii u dambeeyay ka dhacay gobolka Tigreega dhalinyarada waxa lagu sheegay in ay ka soo aruriyeen qaybo kamid oo ka hadlayna waxay sheegteen inay ciidan yihiin laakiin waxaan rabaa in dadka u iifiyo halkaasi dhalinyarada la soo bandhigay xidhiidho kala duwan oo sameynay waxaan loo xaqiijinay yihiin dhalinyaro Tigre ah oo u xidhnaa dowladda federaalka Ethiopia dhinaca kalena gacanta lagu hayay labadii sano ama halka sanadii barkii uu dagaalku socday waxaad ogeyd 2011 in dhalinyaro sidoo kale fara badan Addis Ababa lagu soo bandhigo la yiri dagaal baa lagu qabtay marka dhalinyarada waxaan loo sheegay in laga soo aruriyay deegaanka Soomaalida deegaanka Canfarta deegaanka Oromada Dhabuubta sidoo kale Gambeelaha iyo qaybo ka tirsan magaalada Addis Ababa kadibna meel buura la geeyay ciidamo geesaha laga istaajiyay sawir guud laga qaaday lana yiri waa TPLF laakiin markaad fiiriso sawirka iyo muuqaalka laga soo gudbiyay waa niman dhalinyaro oo reer magaala oo dagaal iyo qajajac iyo qob iyo qacba midna ku jirin dhar caadi oo labis qaar baa suudad qabay qaar baa waxay qabeen face mask iyo corona laga xidhanay markaad fiirisaba rag dagaal ku jiray iyo rag dagaal u hay tabar u hay iyo meel ka soo ragog ma ah laakiin Ethiopia maxaa lagu yaqaan nin xabsi ku jira inay dhahdo jaamacad baa marnaa deegaanka Soomaalida waxaad xasuusataa in la dhigi jiray waxa weeye jiloogaadeen nin jaamacad ku jira xabsiga inuu dhaho jaamacad baan ku jira ama waan ka soo baxay dhaqanka marka Ethiopia dhaqan ay ka zuusho ama ay ka tagto midna ma waa dhaqan caado u ah oo cid kasto oo dagaal kaga soo horjeedo ay ku eedayso argagixisanimo sidoo kalena ay dhahdo maxaabiis baan ka qaban isku soo duuduba xaalka Ethiopia maalinta ka dambaysa Axmedow waa uu ka sii darahaya faahiyow su'aashaan raba inaan ku weydiintaan u soo gudbin dagaalkii hore ee hadda ka hor dhacay sanadkii hore ee u dhaxeeyay dowladda federaalka Ethiopia iyo TPLF waxaa jirta qorshayaal ay samaysay oo tan hadda dowladda Ethiopia aad ka sheegayso kala ah in maxaabiis yar oo badnayn oo ay qabatay inay horey soo mariso ciidamadii TPLF ee dagaalamayo boqolaal ama kumanaanana in inta wuxuu dareeska Ethiopia oo ay gadaal mariso inuu kaamirada laga fogiyo ama dusha laga sawiro in la yiraahdo waa ciidamadii dawladda oo soo dhiibay
labadan khudadood ama dowladdu ha isticmaasho ama TPLF ha isticmaashee waa arrin ay labadooduba isticmaalaan kuwa laftigooda niman daahir ah oo waxa ay sameeyaan kaliya soo bandhigaya ama waxa runta ka sheegaya ma aha dagaalkuna sidiisaba waa khudcu ama waxa weeyaan waa sir sidiisaba dagaalku marka la isku soo duuduubo dowladdu dhankeeda xagee horumar ka gaadhay marka laga fiiriyo galbeedka maxaan ku dhahay dagaaladu ugu faraha badan ee ka socdaan ee deegaanka Amxaarada furimaha kale ee dhanka ma istaageen maxaan ku dhahay meesha la yiraahdo deegaanka Canfartu ma ka istaageen dhanka kale wadadii isku xidhisay Addis Ababa iyo Maqala iyadu ma ka istaageen ee Addis Ababa markii laga baxo dhankan midiga u weecanaysay xagee xaaladahaas ku dambeeyay axmed aad baad u mahadsan tahay sidaad sheegtay horta way jirtaay oo dagaalku waa sir waana propaganda iyo waxa weeye qolada kale in ay waxa weeye waxay rabta ay ka sheegto oo qolada kale dabagediso oo waxa weeye la isku afuufo inta badan dagaalku saas u badan yahay sheegashada labada dhinacna inagu bataatanba ma dhihi karo TPLF waxa ay soo bandhigayso 100% uu saxsan yahay xitaa 50% uu saxsan yahay ma dhihi karo waxa weeye propaganda meesha ka maqno TPLF dhaqankan ku naqaanana dhaqan xun oo liito oo waliba waxa weeye baqti awey marka TPLF loo fiiriyo dhinaca dawladda federaalkana tilaabada maanta ay ku dhaqaaqday waa tilaabo ka sii liidato midda TPLF ay samayso labada dhinac meesha isku hayo oo labaduba cadow ummadda Soomaaliyeed ay leeyihiin dhaqamada ay sameynayaan waxay soo bandhigayaan ma aha waxa weeye qalbiga bini'aadamku uu qaadan karo sidoo kalena aqliga saliimka uu yeeli karo laakiin inagu hadda ma kala xaqiijin karo waxa weeye ciidamada ay soo bandhigayaan in kuwa TPLF ay saxsan yihiin iyo in kuwa federaalka saxsan yihiin laakiin xagga federaalka marka loo leexdo muuqaalka ay soo bandhigeen waxay u muuqatay dhalinyaro iska labisan dagaal aan ku jirin warna aan ka haynin dagaalka wajigooda iyo bidhaantooda marka artana rag iska nashaadsan bay ahayn inta marka aan kaga soo tagno guulaha dawladda ilaa ay hadda ay gaadhay axmedow waxaa laga yaabaa dadkeena dhageysanayo maalin kasta markaan ka sheekayno TPLF meeshaasi qabsatay meeshaasi la wareegtay xaggay ciidamo maxaabiista ku soo bandhigtay xaggay waxa weeye ku burburisay xeray la wareegtay markaad maalin kasta dhahdo dadku qaar waxay ku dhiibay TPLF baata halka qaar kale ay ku dhahayaan waxa weeye dhaqaale lagu bixiyo waxa lagu yiri xabashi baata oo dhanka dawladda marka isku soo duuduba hadaa dhahdo war waxaas dhacay hadaa dhahdana Soomaali ka baxsan mays oo Soomaali waxa weeye dadka Soomaaliyeed aad baan u salaamaynaa hadda wax kale oo gashay inaga Soomaaliyeed laakiin annagu TPLF ma taageersanin dawladda federaalka ana ma taageersanin laakiin muhiimadannadu waxa weeye in aan soo saaro xogta dhabta ah ee taalo furimaha uu dagaalku ka socdo sidoo kalena labada dhinac dagaalka isku hayo inaan isku darin inaan xog heli karo oo waxa weeye dawladda haday guul gaadho aan dhigi karo war dawladda guushaas ay gaadhay oo haday TPLF guul gaadhana aan dhigi karo guushaas ay gaadhay laakiin labada dhinac anagu midna ma nihin shuqul kama lihin inay kala guuleystaan waxaan ka jecelahay inay isku jabaan inta markaan kaga soo tagno dalka Ethiopia dagaalkan hadda ka bilowday sanadii hore marka laga soo tago midka hadda bilowday kan hadda bilowday TPLF maalinkii hore waxay ka soo dhaqaaday magaalada Alamata waxay qabsatay magaalada Qobbo waxay la wareegtay magaalada Gobiye Goldiyay soo gaadhay dhinaca Canfarta buuraha Zobil oo dhan bay la wareegtay dhinaca waxa weeye magaalada Sokota way la wareegtay gashana way la wareegtay dhankan Humeera kolba way galaysaa waa laga saarayaa dhinacan Shareero iyo sidoo kale Shire waxa weeye ciidamadii soo weeraray dhagtay ku dhufatay ciidamadan hadda maanta ka dagaalamahayo ii sheeg Shaarin gobolka Shaarin galbeedka gobolka Tigray inagu ma xaqiijin karno laakiin sida TPLF sheeganayso guul baa ka gaanay dhahan inta waa intay TPLF sheeganayso Axmedow dawladda aanu imaana marka dawladda markaan guusheeda sheegayno horta Axmedow waxyaalaha la yaab kale waxa weeye dawladda guusheeda aad sheegtidee dawladda xagee qabsatay xagee gaadhay meeshay la wareegtay meesha magaceed ciidamada xagee joogan ilaa iyo hadda maamulkii magaalada Waldiya ee inay yiri waxa weeye maalmo aan magaalada dibad joog ka ahayn hadda dib baan ugu noqonay magaalada Waldiya sir rasmi ah xog rasmi ah ilaa hadda laga hayn magaalada hayaan dadka deegaanka la xiriirna waxay noo sheegeen maamulku inuu wali dibad wareegi guusha marka dawladda federaalka Itoobiya gaadhay waa guushaas guusha labaad ee soo raacdana waa mid la sheegay maanta in TPLF waxa ay qabsatay magaalada Sokota ay dib uga saareen tan saddexaad ee soo raacdana waa inay dawladdu soo bandhigtay kiish qamandi ah oo ay dhaheen waxa weeye TPLF adeegsanayso hay'adaha mucaawinada ay adeegsanayso waxyaabaha kale dawladda guusha ay gaadhay waxa ka mid ah inay maanta soo bandhigtay buskadkan loo yaqaan buskad dhiiqa ama plumnetka ay Soomaalidu dhahaan ee carruurta la siiyana nafaqo darrada loo cuno oo laba xaba ah iyo warbaahintii dhanneed dawladda Itoobiya maanta soo sawirtay oo ay soo dhigtay TV-geedii oo ay tiri TPLF aan ka qabsanay markaad fiiriso Axmedow dawladda Itoobiya guul iska daayee waxa taa guul u eg
oo qofka bini'aadamka uu soo bandhigi karo oo uu dhihi karo war meeshaas dowladda gul ka gaadhay ilaa iyo hadda ma jirto waxaadna moodaa in furimaha laga gaadagyahay annaguna hadda been sheegi mayno ilaahay baa nalo ma dhihi karno dowladdu guushaas gaadhay iyadoo aysan jirin guul dhinaca kale ciidamada Itoobiyaanka ay jabayaan tan kale maxaabiistan rabaan dib ugu noqdo maxaabiista taliyihii ciidanka 11aad haystay sawirkiisa iyo muuqaalkiisa TPLF asagoo sigaar ay u shidayso yay soo bandhigtay Axmedow taliyihii ciidanka 37aad haystay isagoo dhaawaca oo ay ku wadaan gaadhi ambalaasa yay soo bandhigtay Axmedow kumanaan ciidan ay soo bandhigaysaa waxa ay dib ka soo saarayso ama tirada ay badinayso marka laga soo tago waa hawl kale gaar ah laakiin waxaan arkaynaa noo muuqdo waa ciidanka militariga Itoobiya ee TPLF mayna soo bandhigin caruur la labisan oo qaarkoodna suuq qabaan qaarna dhar sport ay qabaan qaarna waxa weeye saliid iyo subag u marsan yihiin isku soo duuduba dowladda Itoobiya waxaad moodaa inay burburtay been ma sheekar ciidanka Itoobiya waa ka Suudaan u carray okay inta marka laga yimaado Sukayta waxaad sheegtay inay ka dhaceen duqeymo culus inay ka dhaceen baa sheegtay duqeymahaas ma diyaaradaha loo adeegsaday mise hubka la tiri maxaan ku dhahay waaweyn meelaha fog wax ka garaaca loo adeegsaday taas waa naga su'aal weeye aniga dhageystayaashuba midda labaad dawladdu inta badan waxay xeerinaysaa deegaanadan waxa ku nool horta dad shacab oo fara badan baa ku nool dadkiina dawladdu sida ay sheegtay maadaama oo deegaanada laga qaxayo in ay dagaalo fara badan ama maxaan ku dhahay wax la yiraahdo duqeymo fara badan inay ka geysato ama dagaalo fara badan ka geysato dawladdu way diidan tahay arrintaas horta meesha ku jirto oo dhageystayaashan u sheegaynaa dawladdu ilaa haatan nimankan haddii ay horumar laftigeed arusan aaminsan ay horumar balaaran ay ka gaadheen xagga dagaalada waxaan leeyahay aad sabaqarkada iman lahayn 2 weeks bay socotaa fahayo 2 weeks bay laba saxiix su'aalan ku weydiiyo waxaan horta waa dagaal TPLF qoomiyad yar oo Soomaalida heerka naga ka badan TPLF lagu sheegayo xaafadanada ka badan yaa waxay la dagaalamaysaa 120 milyan shacabkoodii dhaqaalahoodii ciidankoodii hantidoodii warbaahintoodii iyo xiriir kasto ay caalamka la lahaayeen markii qolaha jifadanood ay ka badan tahay ay la dagaalamaysaa intaasi horta inagu aqligan waa inuu shaqeeyo nimanka halka ma gaari karaan waa qodobka labaad niman falaaga ah oo waxa weeye banaanka loo tuuray oo magaalada maqal laga qabsaday oo gabdhahoodii la kufsaday awood la naaray weey oo meel istaagaan oo waxay cunaan la iyaga hadda waxa la sheegayo xooggan helayno goboladan ay qabsanayaan inay raashin cunto soo doonteen oo waxay cunaan ka waayeen dhulkoodii oo ciidda iyo waxa weeye geedaha jilfaha ay guranayaan canjeere ma jirtaba sababtoo canjeerada axmaaran way ka go'an tahay baadhibana waa laga haystaa tigreeguna sidiisaba dhul wax soo saar leh ma ahana waa dhul gaajo ah marka laga soo tago dhulkan humeer iyo walqayd ee la isku dagaalayo kaana gacantoodii kuma jiro taas horta waa taas nimanka Addis Ababa ma iman karaan dhinaca duqeynta magaalada Sokotaan ku imaanay duqeynta magaalada Sokoota markaad fiiriso xogta aan ka helay shacabku waxa la sheegay in halkaasi shacabka lagu baabi'iyay oo lagu gumaado nag ay ku noqdeen dhinaca kale waxa la soo warinayaa dadku in halkaasi ku qaxeen labada dhinac ee meesha ku dagaalamahayana shacab oo ma abayeelhayaan ciidamada Itoobiya waxay geysanayaan duqeymo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo sidoo kale diyaaradaha helicopterka iyo artillery-ga iyo wax kasto ay wadaan TPLF waxay haysataa sida la sheegayo inagu ma xaqiijin kar laakiin sida la sheegay 9 diyaaradood 10 diyaaradood oo nooca la dhaho Antonoviga ee dalka Mareykanka uu leeyahay ee hubka waaweyn iyo xamuulka qaado yaa ka degantoona dagaal ka dhacay deegaanka Tigreega 10 diyaaradood waxay wadeen hub walxaha qaraxa iyo sidoo kale raadeelada gubaha diyaaradaha helicopterta iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn waxay diyaaradaha wadeen oo si khaas ah loo sheegay gantaalka loo yaqaano FIM-92 Stegner missiles oo ah mid ka natiijada meel oolka ah ku soo kordhiya dagaal ka socda Ukraine ay kaga guuleysatay dalkii weynaa ee Ruushka oo gantaal ah ciidanka koow waxa qaadi kara ciidamada lugta baabuurta yar ba qaadi karto baabuurta xamuulka qaadi karto buuraha la saari karaa furimaha laga bixi karaa waa lagu ordi karaa waa la carri karaa tan kale muxuu dhibisha qoriga wuxuu leeyahay diyaaradda helicopterta iyo diyaaradda waxa weeye sheegeen miiga iyo midda waxa weeye drone taaba meel ka soo gasho ka dabad marka laga dabadiro magnad wuxuu leeyahay diyaaradda ceyrsan ilaa uu qarxiyana kama hadhayaba marka labada dhinac waxba isuma reebanayaan shacabkii laakiin meesha joogsaad weydiis waa ku baabeen TPLFna waa qolo yar oo baabaaday oo meel istaagaan la niman hadda Addis Ababa imaan karo inta Itoobiya inta kolba inuu qabsanayaan ciidanka in niyad jabiyaan hadda saad aragtay maalmahan waxay soo bandhigeen ciidamada qabsadeen kuwa ubax ay siinayaan oo caruur yar lagu dhibahay kuwa canjaraafka loogu gurahay kuwa kabaha loo dhaqahay kuwa waxa weeye sheegeen la duraha waxa la daaweynhayo kuwa waxa weeye madax timaha laga shanleynhayo kuwa waxa weeye sheegeen sigaar loo shidahay waxaas oo dhan inay ciidanka Itoobiya soo dhaweystaan ay garabsadaan walaal way dhahaan ay soo dhaweystaan inkastoo Tigreeg dhaqankaadu ay dhaqankaas u ahayn dhaqankoodu ku inkaaran yahay kan xataa Abiy Ahmed haddana inay isku dayaan wax kasta
oo ay ku soo dhawaysan karaan kadibna ciidankan Ethiopia ay furfuraan bool ay u daadiyaan afgambi military u dhaco magaalada Addis Ababa lagu carro suuqa magaalada la isku wada dhafooriyo kadibna ay saa ku soo galaan tan labaad oo ah in ciidanku ay kala cararaan sida haddaba ka bilaabatay wadanka Suudaan loo galo amxaaradu inay ku kala jabto dagaalka oo faanadii Liibi Booliska ay ka dhex bilaabato oo military Liibi Booliska ay ka dhex bilaabato oo Ethiopia meesha la jiray lagu kala cararo isku soo duuduba TPLF qorshaheedu qorshe iyadoo kaliya socota meesha ay qabsan karta mee waa qorshe la raba in la ballaariyo la xalxaalo oo la ballaariyo la wadwado qoladii xaggaba inta la isku celceliyo kadib ay fursad ka dhaxasho dawladda Ethiopia oo baabaaday wayna ku socotaa hadda Ethiopia dhaqaalana ma hayso tabarna ma hayso midnimana ma hayso qolo hadda difaacina ma jirto qoomiyada Ethiopia kala cararsan waad arkaysa ormadii maanta waxay wado sidaa ma ka daran aan faraha sheegin Soomaali waatan waa isha waxa weeye indhaha soo murgum xuguleeda oo maanta waa taadash marka isku soo duduba xalka Ethiopia misaxsan ma intayna garan gutiyo gabagabada barnaamijka ONLFta waxay soo saareen cambaarayn iyo wax isku jira iyo inay ka hadashaan qadiyadii ma garanaysaa galbeedka city iyo canfartii oo soo weerarayso ayada maxaa ugu dambeeyay halkaas Axmed aad baad u mahadsan tahay hoggaanka arrimaha diblomaasiyadda iyo siyaasadda Nuur Maxamed Faatulle oo ah xubin ka tirsan golaha dhexe iyo guddiga fulinta barnaamij aan intiisa badan la sii daynin oo waraysi ah oo ka baxay radio xorriyo ururkaasi uu leeyahay maanta waxa ku soo bandhigay sida ururkaasi ugu xun yahay horta laba arrin buu ka hadlay galbeedka city uu ka hadlay ururka aan fugiisana uu ka hadlay galbeedka city wuxuu yiri abiya ka soo degay waxa weeye jigjiga in cagjar buu imaaday dhagtu wuxuu ugu sheegay wuxuu ku qasbay sandulle walibana in dhulka Soomaaliyeed canfar lagu wareejiyo taa wuxuu ku macneeyay in xisbiga BB uusan wadin danta Soomaalida dhinaca kalena uu ku yahay dhibaato ihaano iyo gunimo uu ku yahay waxa kale oo uu si gaar u sii muujiyay in xisbigani qorshihiisu uu yahay tirtirida qorshada in dhulkooda la wareego inta wuxuu ku daray in ONLF aysan raali ka noqonayn waxa kale oo uu sheegay ONLF inaysan noqonaynin digaagta dhageysa hadda digaagta يعني إيش يعني لو حركة أنت الله دق وكنت كودش إلا قاضي إنه سنقولين أو معنى هذا يهي فرين تاس فرين آد وهذا جيته هذا الكلام كمان في كصباح هذا الذي معلمه قدام بي كصباح معين أنت وحن كقدري قدامي أورك وحكوسه جاي مقالة عدي سوا ما أنت روح الله كل ماي الرضا أو الأف يسيدوا كلا أورك أو إف سي أو هجامية بقالة قربة يجوهر محمد waxyaalaha ka soo bixi doona ilaa hadda moogin saaxiibadana waan u soo gudbin doonaa hadba wixii ka soo baxo isku soo duuduub ONLF waxay aad uga xuntahay sida ay sheegtay xasuuqa shacabka Soomaaliyeed loo geystay iyo dhulka canfar loo geystay iyadoo sheegtay in qadiyadaasi aysan marnaba meel uga hadhin wuxuu ahaa faahiya barnaamijkeena inta ayaan ku soo gabagabaynaynaa daawadayaal intaan dib dambe ugu kulmay doono mid kan mid lamada waxaan kaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo